السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركل iyo kilib kale oo cusub waxa inoo suura gashay inaan wareysi kooban la yeelano gudoomiyaha ururka Soomaaliyeed toos oo ka dhisan dalka Talyaaniga qaasatan caasimadiisa Roma waxaan ku booqanay Axmed Sheekh xafiiskiisa marka waxaan wax ka weydiinay hawshii ugu dambeysay ee ay qabteen marka laga hadlay dib u celinta ay u sameeyeen wiil Soomaaliyeed oo kamid ah dhalinta Soomaaliyeed ee marka ayagu ku noolaa dalka Talyaaniga Axmed Sheekh ee ku soo dhawaaw kanaalka Hashim Roma bal warbixin kooban naga sii wiilkaas aad dib u celinta u sameyseen goortii iyo ciddii idinka saaciday waa mahadsantahay Hashim wiilkaas aan dirnay dhawaan waa hameen hore bay ahayd markaan dirnay wiilkaas sida naloo sheegay markii hore waxaana la ka soo diray Milano ma xasuusto magaalooyinka Tuulo maartay Milano ka xagaysa laga helay markii hore halkaas baa maartay laga soo ambabixiyay nan ku soo hagaajiyay wiilkaas ka hor imaada isla markaasna waxaan ku yiri haddaad wiilkaas aad markaad aragtaan oo idin yimaado tareenka inaad uga hor tagtaan macnaha sida kale waa u roonayo hadalkiisa sheekadiisa sidoo kale iska fiicnaa laakiin haddii uu ka dhaqaaqo socodku iska jeclaaya dibna u soo noqon maayo marka sidaas aan uga hortagnay wuxuu ahay nin la waardeynayo ninkii noogu cuslay buu ahay intaan maartay aan dad diraynay waardiyo ka rabay hameenkii soo jeed meesha seexanayo maartay waardiya har iyo hameenba laga qabanayay wiil baa daba joogay qarashkiisa laba maartay hal ruux markaan meel daji lahayn hal isbeesow lahaye har iyo hameenba maartay ninka daba jooga laba qofood qarashkood baan isku ilaalinaynay xaasil markii u dambeysay waxaan u goynay tigid go'ahan u goynay oo Roma Addis Ababa Hargeysa ah tigidkaas galabtii oo bixi lahay waa iska dhaqaajiyay waa la waayay tigidkaas waa naga khasaaray gadaal dambe maalin jimcaha bay ahayd waxaa la yidhi isniin baan is arki doonaa haddii la yidhaha xag tigidkan loo habeeyo waxay noqotay qof kale maartay in loo maartay lagu daro uusan keligii bixi karin maalintii arbacadii ahayd may axadii iyo maartay tareema metro bay qaadanayeen isay wiilkii magaaladan rabaa u yiri in la soo warwareejiyo metrogii iyo maartay meeshii fermatada uu dadka qaadi lahay inkastoo aad u qaboobay oo istaagi lahay metrogii buu isu dhigay oo ku booday yarkii la socda baa soo qaba tagay waa miisaankiisa ka batay labadoodiiba gudaha iskula dhaceen sida darteed meeshii boolis baa yimid ambalaas baa la wacay isbitaal baa la geeyey meeshaas oo maartay ilaa dhakhtarkii wuxuu yiri anaga naga warsuga waxbaa jirkiisa wixii ku jiray oo maartay balwadaha laga dhaqay waa la daaweeyey ilaa 10 casho meesha ku jiray hadda qamiistii aan hadda soo dhaafnay maartay dhakhtarkii wuxuu yiri waa u tasha kartaan intaan tigid ka jirayna noo haya alxamdulillah waa naga aqbaleen waxay suurto gashay inuu baxay hameen hore adeer waad mahadsantahay anigoo ku dhex wareeray Yurub oo ku dhex waashabaad iga dhex qabatay adeer allah ka jisaysiyo allah ka jisaysiyo guri dadkii caawiyay dadkii gurigeygii hooyaygii waxaan ugu mahadceliyay ma garanayo ilaahay jannada firdawsa meel aan ahayn kama dhaweejiyo ag horteeda istaajiyo insha Allah Ahmed caawa elboorka joogna insha Allah bilaahidno ninka odaygana waa kana faraxsan marka insha Allah safarana siinahan waana mahadsantiin intii oo caawisay u soo gurmatay ma sha Allah inta kaliya oo Soomaaliya toos ka walaal lagu wadayahay in dadka la iscaabiyo Adeer Ahmedna kaalin weyn oo ka qaatay asagoo wili afurin oo ilaa hadeertaan elboorkii oo nala jooga oo wili waxba afarkii wili sameeynin marka insha Allah khayr asana Allah ka waafajiyo marka insha Allah elboorkan hadana taagana waana sii bixina waan baxeena dad badan oo nagu xira xaggaas oo la badan oo noo dhameeyay marka ma sha Allah aad baan ugu mahadcelinayna asagana billaah insha Allah anaga noo soo duceeya inta sadaqada la baxdana Ramadaan la joogay Ilaahay meel ka khayr badan Allah waxa uu ugu bedelo qof walba meesha ku ooman yahay marka insha Allah waa sidaas waan salaameyna adu Ilaahay insha Allah noo soo duceeya aan isku duceeyna adu Ilaahay idmo Adeer Ahmedna kaalin weyn oo ka qaatay waxa waa insha Allah Ilaahay umuriisa u saqiro meel walba ka baayana Allah ka dhameystiro
anigana hooyadiisa waxaa rabaa inaan ku simo sidaa balanta u qaada inaan hooyadiis ku simo oo 10 maalmood la soo joogo xagga jawiga iyo daaweyntiisa sida wax u isticmaal insha Allah xogteeda la soo ogaado muhiimadda taas waa hadda aniga hadafkayga wax walba ay u qaadato inaan hooyadiis ku simo oo hooyadiis u geeyo oo 10kaas maalmood la soo joogo oo jawigoodii meesha la soo qiimeeyo insha Allah waa kaas asaas waa insha Allah hooyadiisna waa ku simo insha Allah duugaa mas'uuliyadda qaadan waa ka soo baxay insha Allah على حال هذا ويلكي مقدشو جوجا هوتيل صحفي مارت القصة دوية نمان بهالك جوجا مارت و معناها شغالة دولة دكتور سنة كوبا لمية هوتيل صحفي وجوجا ديارة دي هرقيسة وقاعدة لهذا وديارة دي وابوحان سبتي دام بابوس الله هي سبتي دو كبيح دونا ويدي سوى أول هورا مارت على مارت وحودي هذا واحد نقطي هذا يبغى أنا حسنت هاي يضاف فرحسن بين الصوع ده هذا هالكاس ومرية وأنا قف عندنا قف كي يبغى خرج كبدناي وقدف كبدناي بالنوية. إن سؤال عن كويدينا واحد هاي قرش كوب حي انتو لقي هاي يا سيدين كعاوم. خرج كوب حي انتقد كيس اللقوقية انتي الهاي هاي انتي سي يوحي أدقوا أدقيد ودمرت هايان. annaga horta mar kastaba jeefkeenaan iska maarta annaga istabarna jeefkeenaan isku dardarsanaa waxna deyn baan usoo qaadanay maadaama wiilkan kharashkiisa oo badnaay waxaa ku baxday 2,394 euro yaan xisaabtiisa kusoo xirna oo ku baxay maadaama qof kale oo wadayana hooyadiis maartay waxay deyn iyo qaaraan iyo ay soo lulufatay $700 $700 dib baan isaga u celinay oo maartay faraqabsi inay biilkoodana kasii dhigtaan intay jidka marayeen tigidhka muqdisho hargeysana ay ka goostaan halkaas bay ku baxday ay saas ugu noqotay laakiin tigidhkiisa intii ku baxday waa 2,394 euro taasoo maartay soomaalida kuma joogtaa Itaaliya guud ahaan Itaaliya ay maartay bixisay xagga sharciga maadaama socdaal uu ahaa wiilka markaa dib u celinta loo sameeyay wax sharci ma laha waxaaba yaraatee sharciya ma lahayn xataa inuu horeba sharci u lahaan jiray maartay 5 sano oo Yurub oo meelo badan ka soo maray wax sharciya ma lahayn baana loo sheegay marka wuxuu ku baxay laasha basaare waraaqdii maartay go'aamka oo safarda laga jiray taasoo ku baxay waa mahadsantahay Axmed Sheekh waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka Soomaaliyeed toos oo aan waraysi kooban kala yeelanay dib u celin loo sameeyay mid ka mid ah dhalinta Soomaaliyeed iyagu markaasi dhibaatada xagga caafimaadka kala kulmay sidaas daraadeedana markaa ay u fududaatay in dib loo celiyo waa tahay Axmed Sheekh waa mahadsantahay waana kaaga mahad celineynaa fursadaad noo siisay caawita in aan kula yeelano waraysigan isaga